السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب بدر قيمة هي قدرين كمودن إسدا توسكا نجلا سعد برتن نجل كميديا أسوسان نقد ونكسر وحيس بدن والرجين يا أديكو عافمات قبل إن أدمر كله هل كم كسر الله بطي صاحب يال مانتا وحمدين سدا هو يجا مقدسة كدقين هي مدحويني هراء الدلك محمد عبد الله فرماجو مشغول كي وجبدنا أيا حلي جن كجلا قرروا oo aan ismaqalnay dhinacyada xilligan la shaqeeya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ila wadaageen in safaf dheer loogu jiro guriga uu Muqdisho ka degan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sababtu maxay tahay maxaadan ogeyn oo siyaasiyiintaasi ay u socdaan muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa, balse marka ugu horeysa muuqaalka like garay, si share garay, dad badan la wadaag si uu muuqaalkan u noqdo midka ugu saameynta badan. haddaba iga hoo xogta iyo warbixinta hooyga ay siyaasiyiintaasi ugu mashquulsan yihiin sababteeda ayaan halkan kugu soo bandhigayaa. waxa ay siyaasiyiintaasi u socdaan laba ajanda midkood. kow, raaligelin oo ay raaligelinayaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka raaligelinayaan laba qodob midkood dowladdiisa ay kula kaceen ciidankii Eritrea oo ay dad badan markaas siyaasiyiin iyagu kursi doon ay dhihi jireen dagaalka Eritrea iyo Ethiopia ama aan raahday waa Tigrayga iyo dowladda ayaa loo adeegsaday Ethiopia ayay ka raaligelinayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. safaf dheer ayaa loogu jiraa guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xaalka siyaasiyiintaasi waxa ay noqdeen kuwa ku soo gabagabooba madaxweyne waanu qaldanay, naga raali noqo, waxaana qaaday xasarad, waxaa nala soo gudbiyey warar aan la isku halayn karin. waxaad mudan tahay ammaan, waxaad tahay geesi, waxaad tahay nin ciidamada tababarkii ugu fiicnaa siiyey. maanta waxaad mudan tahay in taallo lagu dhiso. maanta waxaad mudan tahay in ciidankan oo aad juhdi iyo waqti gelisay in xeryaha ay degayaan magacaaga sawirkaaga lagu xardho. ereyadaas waxaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la wadaagay siyaasiyiin badan oo ilaa iyo hadda safaf dheer ugu jira hooyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xaalka siyaasiyiintaasi waxa uu noqday waxaad ammaan iyo wuxuu noqday guud ahaan in ay ka raaligeliyaan. Farmaajo waxaynu ka soo xignay in uu yidhi marnaba lagama yaabo in qarankan aan ku xadgudbo, marnaba lagama yaabo in dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad igu aflagaadayn jirteen aad ayaan u dhibsan jiray ayuu yidhi markii siyaasi Soomaaliyeed uu arrimaha ciidanka ka hadlo. aad ayay ii taaban jirtay ayuu yidhi. runtii fariin qiiro leh ayuu la wadaagay siyaasiyiintaasi. qaarkood oo aan ismaqalnay waxa ay yidhaahdeen dulmiga aan ninkan ka galnay maanta waxa uu mudan yahay isaga oo nacafiyey in xitaa aanu sidan uga harin ee garab istaag in ay u muujin doonaan oo ay garab taagan yihiin ayay sidoo kale markaa madaxweyne Farmaajo ku yidhaahdeen. aad ayaad u mahadsantihiin ayuu yidhi Farmaajo, waan idinka mahad celinayaa ayuu yidhi idinkuna in aad qaladkiina garawsateen. kuwa kale ee weli ku adkaysanaya la hadla oo qaladaadkooda u sheega ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa xogta soo gaartay xilligan galka media. kulankaas waxaa la leeyahay maalmahan ilaa iyo weliba muddo badanba arrinta ciidanka Eritrea ilaa laga soo celinayo hooyga Farmaajo mashquulkii ugu badnaa ayuu markaasi ku guda jiraa. waxaa hadda ii soo dhacay siyaasiyiin badan oo iyaguna markaa la soo shaqeeyay ayaa la leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble iyaguna raaligelinta qayb ayay ka yihiin ayuu leeyahay qofka ku sugan hooyga uu markaa Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa xogta iminka isoo gaartay. siyaasiyiinta weli magacooda ma uusan ii sheegin qofka qoraalka ila soo wadaagay ee balse waxa uu leeyahay waxaa markaa iyaguna qayb ka ah xubno badan oo la soo shaqeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka.
muuqaalka noo sii sheergaray wararkan iyo weliba arrinta Eritrea ciidankooda wixii ka soo kordha halkan kala socda, halkan isha ku haya, halkan waxay idin noqon doontaa in xogo badan aad ka sii yeeshaan. muuqaalkan haatan aan kula wadaagay warbaahinno kale ayaa maalmo dambe kula wadaagi doona. marka diiwaan gasho waxa aan halkan kula wadaago ma ahan wax aan iska dhaho, waa xog iyo weliba xaqiiqda markaasi ku salaysan. tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal.